tababarkan oo si rasmi ah u soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland mudane Maxamed Daahir Axmed ayaa tababarkaasi waxa ka qayb qaadanayay 45 macallin oo kamid ahaa macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Maroodijeex iyadoo oo ay muddooyinku u dambeeyay si habsami ah uga socday dugsiga Faarax Omar ee magaalada Hargeysa ugu horreyn waxa madashaasi ka hadlay Maxamed Cabdi Xayd oo kamid ahaa macallimiintii casharkan bixinayay ayaa ka warramay qaybaha kala duwan ee uu tababarkaasi ka koobnaa xirfadda macallinimo duruus xagga aqooneed may baranayeen laakiin waxay baranayeen xirfadda macallinimo sida ay wax u dhigi lahaayeen waxaanu siinaynay casharro loogu talagalay oo muddo dheer soconayay waxaanu ku soo gabagabeynay imtixaanaanu ka qaadnay oo iskugu jira mid practical oo macallinku halkaas soo taagayo sidoo wax u dhigayo iyaguna qaybta inta arsanina ay ardaydiyo kala matalayaan iyo qayb ritana cashar diyaarintu ay kamid ahayd sidoo kalena waxa iyana halkaasi ka hadashay Marwo Ubax Rashiid Cige oo kamid ah hay'adaha ka howlgala Somaliland oo ka caawinaysay tababarkan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland ayaa iyana ka warantay doorka ay ku leeyihiin tababarkaasi iyo qiimaha ay macallimiintu ku fadhiyaan wax soo saarka dhinaca bulshada لكن مهمته وحن بهاي ما دام التكنولوجيا ساعتها أدون كيس بدلاعيه إن كل بهالك اللي جوجا كان لاقى سي قاعدة وحنا جينا إن شاء الله إن واحد بدن كبرتين كنفايدين agaasimaha kulliyadda dhinaca waxbarashada iyo sayniska Cabdiqaadir Cabdi Xasan ayaa isna ku tilmaamay in wasaaraddu ay qorshayaal kala duwan u dejisay sidii macallimiinta kor loogu qaadi lahaa isla markaana loo tayeyn lahaa dugsiyada waxbarashada ee ay macallimiintu wax ka dhigaan soo bixi doonaan hadii la haydhaa arday tayale ama ka gudbaan dugsiyada hoose dhexe ama sare ka gudbaan oo jaamacadaha u gudbaan runtii waa midda 2017 ilaa 2021 qorshaha waxbarashada qaranka u yaalay wuxuu muhiimada koowaad siinayaa in macallimiinta la tayeeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland mudane Maxamed Daahir Axmed oo tababarkaasi soo gabagabeeyay ayaa waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda ay leeyihiin macallimiintu in la xoojiyo aqoonta macallimiinta iyo kaalinta uu macallinku kaga jiro horumarinta kobaca dalka macallinka marka idinku waxaad tihiin waxbarashada lafdhabarkeega marka idinku haddii aad xirfad yeelataan wanaagsanaataan waxbarashaduna way noo hagaagaysaa anaga wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxa noo siyaasada tayeynta macallinka waxbaraya ardaydeena taas oo ay barbilow tahay kulliyadda oo imikana lagu kordhinayo qaybtii chiefka oo macallimiintu chiefsan doonto oo halka wax ku baran doonto marka geediga aynu bilaabanay tayeynta waxbarashadu muddo soconaya mar walbana inta itaalkeena aynu ku darana Maxamed Faarax Cabdiqani Daacad TV-ga caalamiga CNA magaalada Hargeysa